السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada asxaabteena qiimaha badan ee ku xidhan channelkeena Xogdoon ee YouTube. Sida aad ka dheehan barnaamijkeena ciwaankiisa, maanta waxaan ku falaqay doonaa oo aan ku jecjeci doonaa barnaamijkeena Xogdoon haweeney Ciraaq ka timid oo damacsan kursiga Ilhaan Cumar. Alia Al-Aqidi announcing her bid to unseat Omar in a fiery political ad you just watched. The new GOP. haweeneydan oo u dhalatay dalka Mareykanka balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Ciraaq oo lagu magacaabo Dalia Al-Aqidi ayaa sheegtay in doorashada soo socota ee Mareykanka ay doonayso in Ilhaan Cumar ay kula tartanto doorashada Mareykanka gaar ahaan Minnesota oo ah halka laga soo doorto Ilhaan. Because Ilhan Omar is doing irreparable harm not only to her. haweeneydan oo ka tirsan isla xisbiga ay Ilhaan Cumar ka tirsan tahay ee dimuqraadiga ayaa sheegtay in Ilhaan Cumar ay tahay mixnad hor leh oo ku soo korodhay siyaasadda Mareykanka waxayna intaas raacisay in qaladaadka Ilhaan ay ku boorisay inay u tartanto kursiga aqalka Koongareeska ee Ilhaan ku matasha Minnesota. waxay tiri sababta ay ugu dhalisay inaan kursiga kula loolamo Ilhaan Cumar ayaa waxay tahay in waxyeelada inantan Soomaaliyeed ee Ilhaan Cumar aysan ku koobnayn oo kaliya gobolka laga soo doortay waa sida hadalka u dhigtay balse uu saameeyay guud ahaan dalka Mareykanka. ka muwaadin ahaan mas'uuliyadeydu waxay tahay inaan ka hortaga nacaybka iyo cunsuriyadda ay ku baahinayso bulshada iyo guud ahaan caalamka. sidaa waxaa yiri Dalia Al-Aqidi oo la hadlaysay telefishinka Fox News ee dalka Mareykanka. Dalia ayaa intaas raacisay in Ilhaan Cumar looga fadhiyo inay ka jawaabto su'aalo badan maadaama sida ay sheegtay ay dhibaato u geysatay dad badan oo Amerikaan ah. And my duty is to stand up to her hatred and racism that she's waxaa kale oo ay sheegtay in Ilhaan Cumar looga fadhiyo inay wax u qabato deegaankii laga soo doortay sharci walba oo ay meel marisana uusan waxtar u lahayn dadka ku nool halka laga soo doortay. haweeneydan oo ah saxafiyad horay uga soo shaqaysay warbaahinta caalamka ayaa Mareykanka qaxooti ahaan ku soo gashay sanadkii 1993 waxa ayna qoyskeedu ka soo jeedaan Ciraaq. arrintan ayaa ku soo aaday xilli Ilhaan Cumar ay shaacisay ololaheeda doorashada oo mar kale ay doonayso in dib loo doorto. Ilhaan ayaa bilowday halku dhig ah dib ugu celi aqalka Koongareeska oo ay ula jeedo dib u doorashadeeda. Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed qaxooti ahaanna ku tagtay dalka Mareykanka ayaa ka mid ah siyaasiyiinta aadka loo bartay dalka Mareykanka sanadihii dambe waxa ayna ka mid tahay dadka aadka u dhaliila siyaasadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid ayaduna waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin cusub. waad ku mahadsantahay la joogaaga.